ولا ذمية أدين كييرانا أد عادي ما وأد لغو راحيسانا أكويدي ما سقردان أدوجي يجلي حاو تريا بلوما دعدي كدعدي ياردي اكسكا يعيد قرب كديسيس انت ماشس وين تكوخرتا NIA دولد هندية سردون كودي أيا سوقري NIA ذان الله إن دعدينيسيد أني مركي ليسكو دي إن ليحيرو ما بالله سماينا كورا تنكالي قبل كان كشمير بوغ مركو كتاقنا إي على لاسكا أذنك مجرينا متكالي نوكو شيغا آنيغا كوركيغا ما تابكرتان هديك لي حقوق الإنسان ayaa qaylinay kadibna baantay barbagandadaad meesha ku haysaana barnaan ku soo baxays la socota Soomaa burcad la wajila inaa tahay labisko kaliya ku fiican tahay wajigaaga guduudow noqda si dooli shabaq lagu eejiyo kale qasaar weyn idin gaarta Soomaa ii sheeg meeqa dhimatay 35 ma dhimatay mase 40 ii sheeg bar nashqada makeeche sudar muxuu ma waayana waa doctor adiga iid ayaa soo dhow sudar hooyadiisna balan meesa qabsanayada maqaarka waba ka bukaday bariyahan adiga daawmo marsamay eedo biyo kulaalay keen waaya gabadheeda mahadsanid tinaaba ka soo baxday sakiin ma isticmaasha adiga heer muuf aniga ba ku mariye maxaa dhacayna inta saa igu filan hadda maanta wax kale ma u baahnay haddii cidiyaha aad samaysatid ka waran nashqado badan oo gabdhaha samaystaan ayaan ku hayaa si fiican u fiiri waa ku keenay mahadsanid ma kaashay waxda u baahatay isoo shaw ku keenaya okay mahadsanid hooyada waxay ogtahay ma lahan adiga yaa tahayna ha joojinin hore u sii wad sawirada waad fiiri kartaa fiiri kurbash naanees fiican waaya katiinadan aad ayay u qurux badan tahay laakiin kashmir ayada lagama helo xageed ka keentay suuqa madooba mise kusli suuqa la yiraahdo ilaa xuduudka mar walba laga gudbay iska baxa ku dhila orod bax waxaan ka ogaa malaan iska bax aniga su'aalo ma ku weydiinine burhaana burcad ma ahaya بليس وكبريا وانين هاليا نينكاس اسكبح ساعة مركو جيجي كتاك عيدن كينو وحي ربان هاشيغان لكن ساني وحي يقال ملهان لكن سكشمي رودان برهان اي تاغير سانتاهي سابين انيغا هدي انبحو قفك ابدالايو قف دقن منقونايو نينكانا إلا أفر إلا شناق أيو شكان صدا لابا سبورا أي جوغان من سبورا أي جوغتا أيضنا مدى وقدم بيسانا لابا الكود أي جوغتا مرول بحن كوديلا والدين تاذا كفكر أديغا أباها ودنها أيو كحنوسيان سو ماهان هدي بولسكي أيكو قبطان دادك هورتو ودن أيكو كحيان كدمنا غاري كساران أباها سيدون نقن كرا هدو حنوسانايا قفانا كجعلين درتيسا وحلبها وسمينين فاملكاغنا نفتودا هلسا قلينين قفان كجعلين درتيسا وحبها وسمين برهان يشيك وايه هدي سيداس تاهي مدن قور برهان ayaan warbixin ka helay 12 barkii karkood ayu imaanaya hadartan tilaabada waa inaan qaadnaa maya shirqoole noqon karta tilaabaha qaadin jabriyan ugu horaan wax ka ogaanaya kadib waan ku fasaxi doonaa u kaadi mudane warbixin buuxda ayaan ku soo gudbiyay sirdoonada militariga gurigaas indhahay ku hayaan 360 mitirna kama arki karno micnaheega dhanka waqooyi ay guriyaha dhan ka soo xigaan qof aduun arkana howlgalkeena u dhamaatay mid ugu muhiimsan waxay tahay zoniya arinkan adiga maroran ka hadalnay ninkan 6 bilood ayaan daba socday wax walba waa inaan arkaa meeqa faasilada gudaha waa ku jiri karaan waayid 20 ilaa 25 qofood waa ku jiraan waliba dumar iyo caruur badan okay meelaha laga gali karo waa kuwan halkan iyo halkaas iyo halkan major kumar oo araalay ka socdo ayaa teamkan hogaaminaya teamkiisana dhankan koonfurta ay ka soo galayaan wasiim adiga teamkaaga dhanka bari ka soo gala aniga teamkaygana dhanka galbeedaan ka soo galaynaa badana adiga marwada la jooga dhanka waqooyina waardi wanaad ka qabataan korna ka fiir waxa soo macada okay مدن قبر فسح كم صوصين سومهنا يا برهان لaba jeer ayuu naga baxsaday midaas mas'uuliyadeedana qawaar ayaa qaadanayo sababtoo maalin walba jibriil ayuu warbixin ka sugaa ninkaasna waa beenlow aamin asaga wuu imaanaya johan arrinkaas hal wado kaliya lagu ogaan karaa adigoo meeshan waardiye ka ah sidee waxaan oo dhan ay ugu dhaceen dhigeys ma safiya waxyaabo waxa jira adigana aad controlka anigana sidoo kale oo gacanteena waliba ka baxay ISI ka waran operationka inuu dhacay ma ogeen mi ayaga ma ogeen taas bargada baashana aniga ayaa la hadlay mid kale waxa doogata meeshan waxa ka socoto sheekada Falastiin ka socoto meeshan ayaana la keenay ma qasana ayaan sidaan ahayn anaga cidna caawinaysa ma laha hadawaya maskax maalti maadidna ii sheeg waa iska hadlaysa oo kali taas macquul miyana markay sheeg masar atali adii ma ilowday gurigan inaad marti aad ku tahay dhamaanteen xanuun waxa nagu ay Soomaa geerida burhaan Cabdalle hadda tacsida burhaan ayaa noo talso annaga intaan dhacdeena ka dagaalayn
inaan dhexdeenna ka heshiina ayaa loo baahnaa oo ninkaas aan lagu cidlayn geerida marba haddaa tahay xurnimadoon looma baahna in aad dab basiin ku sii shubtid waxaa loo baahan yahay xanaaqaaga in aad kontarooli kartid waxaad sameeyana aad ka fiirsan kartid hadda annaga waxaan ogala baahan yahay sidii magaalooyinkaan ku gelleen in aan ka fikirno si weliba caqliyaysan looma baahna marka isdhinacyaa iyo maxaa la dhihi lahaa ishaafalata qof walbaba uu samaynayo wuxuu rabo hadda waxaan rabnaa arbaco walbaba taariikhda in aan bedelno waxaan kaloon u baahannahay dhallinyaradoo dhan in laga dhaadhiciyo jihaad waxaan kaloon u baahannahay guri walba oo la weerarayo in macnaa la calaamadeeyo waxaan kaloon u baahannahay dhammaan shacabkoo dhan in dhagxaan loo qaybiyo maxaa yeela dhagxaantu hubka ayay ka mid yihiin shidaal waa in loo qaybiyaa waddankan hindiya oo buudiistaa waxaan rabnaa inaan cashar tusno annaga jihaadku in uu dhabnaga yahay waa in aan u caddaynaa hindiya xurnimadeenna waa in aan xoog ku raadsannaa burhaan maalinta la duugaayo dadka hindiya oo dhan waa in ay khalkhalaan oo cabsigelin aan ku samaynaa calanka bakistaanna heeskiisa guri walbaba waa in laga shidaa waxaan rabaa aniga rabitaankeenna in uu hirgalo oo aan hirgelino waxaa soo bixi doona burhaan cusub burhaankaasna hindiya wuu khalkhalinayaa dagaal cusubuuna ku bilaabayaa dadweynuhu waxaan idiin sheegayaa burhaanka cusub oo hogaaminaya shacabka waa sakariye haddeertaan waxaa la gaaray xilligii annaga aan argudan lahayn dowladdan indiyana mar walba waxay u malaysaa ayada annaga inaynaan diyaar ahayn laakiin waxaan u sheegaynaa haddeertaan annaga inaan diyaar garownay dilkan maalin walba ay samaynayaanna waa uu sii socon doonaa hal burhaan ayaga haddii ay dilaan waxaad ogaataan guri walba oo magaaladan ku yaalla burhaan cusub ayaa ka dhalanayo intee burhaan ayaa iga dili karaan ma ii sheegi kartiin aniga waa maya sooma waa u dagaalamaynaa waa baabi'inaynaa hindidan annaga soomaa ka wayan ka siinanaa kulligooda annagii bakistaan maxaan isku nahay maxaan wada aaminsannaani ayaga hindidu waa ka argudanaynaa soo maahan kulligood waan baabi'inaynaa maaho waan baabi'inaynaa soo maa waan argudanaynaa soo maahan annaga waan argudanaynaa maaho kashmiir maxay ka mid tahay kashmiir annaga iskale kashmiir annaga iskale waan dagaalamaynaa kashmiir annaga iskale xisbiyada mucaaradka uu hogaaminayo burhaan waali ayaa waxaa la sheegay buuq iyo khallalaas inay magaalada ka dhaceen buuq iyo rabshado iyo dagaalo iswataa dagaalkaasina wuxuu u dhexeeyey booliiska iyo dadka shacabka dhaawacyadoodana waxaa la geeyey isbitaalada ugu dhowaa meesha burhaan waani oo ah nin uu master dhalay ee isagana ciidamada security forceska 8 Julaay ayay xabad ku dhufteen gabadh meesha joogtay ilaa haddana kashmiir waxa ka socda banaanbaxyadii lagaga soo horjeeday hindiya howlgalkan cidda fasaxdiya tahay ma noo sheegi kartaa qadarna ma soo ogeysiisay oo kaal waxaan ku weydiinaa meeshaas burcad inay joogto adiga ma ka warhaysayna maya warbixintana waxay ugu soo gaartay burhaan oo kaliya meeshaas inuu joogo okay caruur iyo dad kale inay meesha ku sugnaayeen waa ka warhaysaa ma ogeyn aniga qof kamid ah haday wax soo gaar lahayn ama baxbad ay ku dhici lahayn ka waran maxaa dhici lahaa burhaan ayaan dilna soo maahan anaga weliba anagoo cid wax gaarsiinin maya lama dilin weli maya isaga maada dilin laakiinse ogow asaga kora u sii qaaday kashmiirna waxaad ogaataa shuruuc iyo weliba system inay u yaalaan haddaa kasoo horjeestana wax kugu dhici karo waa la socota dabcan warkayga madaxaaga ha galo adiga dadka kaa saree wax sharaf ama ixtiraam intaba uma haysid sababtoo ah waxaa cad hadda hadalkayga xitaa inaad ka tilaabsatay sababta maxayta marka taas waxaaba sii dheer ciidamada securityka oo forceska ayaad ka soo qayb gelisay dagaalkan weliba cid kuu fasaxday ma aysan jirin dadaal intaasoo sana lasoo samaynayay iyo waxyaaba intaasoo sana lasoo dhodhoorayay ayaad daqiiqad gudahooda ku burburisay taasna waxaa u sababa madax adeegaaga amar diidda maasaan ku wadayaaday kashmiir maanta way gubanaysaa holacaana ka kacayo waxaasoo dhanna mas-uuliyaddeeda adigaa iska leh qof kale laga saaraya dusha haba yaraatee ma jiro maskaxdaada geli taas delhi ayaa lagu bedelayaa weliba sida ugu dhaqsiyaha badan halkan ma sii joogaysa zoni johan hurdamaan kaa kiciyey laakiin dalay markaa tagtay maanan soo wicin khatar waaye maanta nin wasiira arooskiisa ayaan waardiye ka ahay mid moog tahay marmarka qaar waa inaad tallaabo dib aad u qaadaa si aad hore ugu dhaqaaqda hal maroo xoog badan aniguna waxaa ku kalsoonaada adeegaaga adigoo kalsooni qabo meesha ka soo bax johan dadkan dhulka ayay dhigeen ayaga zoona adigii dulqaado meeshaas la ii joog naftaada ilaali anigaa iga walwalin isbuucii lasoo dhaafay ra-iisul wasaare waxa uu la kulmay 6 qof oo ka soo jeedaan dhinacaas waxayna iskugu jireen madaxda iskuulada iyo sidoo kale ardaydii ra-iisul wasaarahana barogaraamka uu kashmiir ku waday 2 sano ayuu soo socday si walbay ahaataba dhimashada burhaan waani ayaa isbeddel weyn arrinkaas ka dhalisay dhinaca kashmiirna siyaasadeeda hadda waxaa laga dareemayaa culays fara badan inuu saaran yahay
marka macquul ma noqon doontaa arrinkan dawladdu inay wax ka qabanayso oo weliba hore u socon doonto aabbaha xaaladiisa ka waran siduu yahayna weli sidaadoo kaleeto u dhib badan yahay article 370 aniga waxaan isdhahay mashruuca ra-iisul wasaaraha ayaa ku mashquulsan adiga xataa waa isku dayda waqtigaagii dhulkaas inaa wax ka dhista soo ma aha aniga waan isku dayay laakiin waa ku guuldaraystay sababtaas darteed ayaan kuugu imid si annaga markaanu guulaysano si fiican ii dhegayso article 370 meeshaan waa in laga saaraa kashmiir iyo jamhuurna haddii laisku keeno wax badan ayaa qabsamaya marka arrintaas dadaalkeeda ha la galo si walbay ahaatay xisbiga meeshaas ka jira 1957 markaasuu haddii aan meesha lagu haynin waxaa wareere amarka meel laga soo qaato ma laha anaga meel yar aan ka galnaa loo baahan yahay awooddaanna xisbi kaleeto ugu yaran waa inaan ku wareejinaa ka waran aqalka hoose arrimihiisa sida aniga ogahay cid awooddan kala wareejin karta ma laha haddii annaga aan isdhahno awooddaas aqalka hoose ku wareejiya xisbiyada kashmiir jooga arrintaas haddee ay maqlaan makula tahay in ay ogolaanayaan ra-iisul wasaarahan waa aragtay arrinta asaga haysata bervenina asaga ayay taageeraysaa xisbi laga filinayo annaga inuu garabna siiyo ma jiro saasay tahayna lama aamini karo waxay noqonaysaa annaga sharci cusub in aan soo dejino oo dadka aan ka dhaadhicino 70 sano ka hor kashmiir dadkii joogoo dhan maskaxdooda wax kale ayaa laga dhaadhiciyey article 370 in ay diinta ay ku saabsan tahay waxaa la sheegaa article 370 haddii la sharciyeeyo dadka muslimiinta ah in meesha ay ka baxayaan oo waxyaabo badan ay qabsan lahaayeen meesha laga saarayo taas waxaa sii dheer meesha waxaa ka baxaya masaajidihii meelihii wax lagu baranayay waxaan rabaan gaaladan meeshaas inay ka dhigaan mandar iyo waxyaabo aan loo joogin dadka muslimiintana waxay ka fikirooyin gabdhahooda dad muslimiin in ay ugu helaan marway dhegayso qolada era iyo md-da ee kashmiir joogto annaga taageerahuna ma siinayaan dadkaas kashmiir iyagaa iskale ciidan kale inuu soo dhex galna uma ogolaanayaan iyaga marka hore dhagaysta madaxadeegiina waa fahmi karaa ra-iisul wasaarahan hadalkan wuu diidan yahay wuxuuna diidan yahay burhaan geeridiisii oo kaleeto in ay dhacdo mar kale national investigation iyaga ayaa loo xil saaray howl walbeeto kashmiir laga qabanayo in ay iyaga keliya ka qaban doonaan annagana ka fadhiisanayno ciidamada sirdoonka ugu fiican kashmiir waa in la geeyaa intan kaleeto waxaa la rabaa abuukaatiyaal ha noqdo boolis fiican ha noqdaan kashmiir waa in la geeyaa xoogaa yar sokortaa ku yar wax kale hadday jirin shaqadeena dib aan ugu noqono way warbixintii shalay dhankaas ee kashmiir ka soo baxday waay warbixinada oo dhammaystiran inaad idinka haysaan ayay ahayd teeda kale waxaa loo baahnaa burhaan idinka inaad wadahadal la samaysaan sidii tookada hore dowladda dhexe ee samaysay oo kaleeto sidaas ayaa laynaga baahnaa laakiinse hay-adihiinaniiti tallaabo qaldan ayaabad iska qaadeenba midaasne ma ahan mid soconaysa yaaqa looma baahna aniga wax walba ra-iisul wasaaraha waana caddaynayaa ma fahanta ee la adeegsanayna ma yihi masandaraabi waxaa wanaagsan dhammaanteen arrinkaa inaan ka gudubno ra-iisul wasaaraha wuxuu rabaa kashmiir diiradda in la saaro waayaha waxa taaganoo hadda xaadirka ahna aniga halkaan miska dhex fadhinayaana adiga waxay la tahay xoogaa warbixin yar eed rabti inaad gudbiso balse waxay la tahay qoftaan inay kuu diidantaha warbixintaas adiga inaad gudbiso soo maahan soo qaldanahay marwo ha ii qaban yaqa waxaasoo kale waa iska caadiye mideeda kale waxay la tahay aniga bakistaaniyiinta inaan u tagno weliba si degan aan ula hadalno xaaladana si siyaasaysan aan u dabarno soo maahan anay fikradaas mooy fikrad kale waxay habeeraatee ma jirto dabcan waad hogaaminaysaa muddana way kuugu dambaysa bakistaan in aad imaato oo weliba aad ku raaxaysato mudane jalaal mandar hadaraabi ra-iisul wasaaraha wuuna sugayaa okay waaya waxaan ku dhahay weligaa hayloobin xasuusnaawiya horta magacaaga muxuu ahaa ii sheeg bal soni aksar alloora adiga ma tihid ninkii aan aqaanay ee kabiir xagsar dhihi jiray gabadhii u dhalay soo maahan waxay la tahay qof kalaa tahay runtii aabbaha waxaana wanaagsan weliba saaxiibo ayaan ahayn waxyaabihii foosha xuma ay ku dhacayna markaan maqlo aad baan u murugoodaa adigana go'aan fiican ayaad qaadatay mana fiicno qofka biniaadamka inuu gacantiisa isku dilo maadaama halkan aad timidna runtii waan ku faraxsanaa go'aan fiican ayaad qaadatay waxaad ogaataa hindiya waa meel aad iyo aad u wanaagsan balse kashmiir meel laysku halay kara maaha wax walba ayaa ka dhici karo waa meel baxa la galayn ah way fahamta soo malaynaa saasa kaa raba bombay maxaa ku dooratay shaqooyinaan rabaa inaan ka qabsado mideeda kale waxaan rabaa shahaadooyinkayga inaan cusboonaysiiyo aan ku weydiiyo gurigiina iyo familka ma u xiisan miya marwo macnaha waxaan rabaa su-aal inaan ku weydiiyo halkaa maxaa kasoo doontay adigaan rabaa jaanis inaan ku siiyo ayaan rabaa kashmiirne dib aad ugu laabato shaqo ayaan rabaa mas-uul inaan kaaga dhigo maya marwo anigoo weliba ku qiimaynayo meeshaas way iiga dhammaatay sooni iga raali noqo qabar agtiisa kama shaqaynaysid NIA-da ayaad ku biiraysaa lama baahna booliska inaa hadal u gudbiso iyo kuwa edhiiga
weliba dowladda hoose xataa uma gudbinaysid ogow xoraad ahaanaysaa war walbeeto iyo wax walbood aragto dhibaato ah anigoo keliyaad ii soo gudbinaysaa waxaa rabaa kashmiir dhibaatada ka taagan in aan soo afjarno aniga indhaha ayaa bannaanka yimid ciidamada NAI-da inaan ka mid noqdo muhiim ma ahan ciidamada AD-da inaan ka mid noqdo xataa muhiim ma ahan xataa ra'iisul wasaare kashmiir haddaan ka noqdo wax faa'iida ma lahan burcadnimada ganacsi ayay noqotay qof walba burcadna ganacsigooba ku jiraa sida filinka asaadiyo kaleetana ma ahan dadkan burcadnimadooda waa lacag America Pakistan intaasoo lacagood haddii ay ku wareejinayso si ninka bilaadi la dhahayo gacanta ay ugu soo dhigaan ayaga ma rabaan gacanta inay ku soo dhigaan diyaarna midaasu ma ahan laakiin waxay u socdaan qarashkaas mar walba la bixinayo faaliga wax ka jirana waa waxaasoo kaleeto 29 state tusaale ahaan ka soo qaad kashmiir waxaa la rabay xasilooni inay ka dhacdo iyo deganaan intaasoo sana ganacsi iyo musuqmaasuq oo kaliya ayaa ka socday kashmiirna waxaa dhex jooga dad calooshiis u shaqaystayaal oo jeebkooda buuxsanayo dad waxay iska dhigayaan mar walba jecel nabadda inay sameeyaan laakiin nabadda sheegayaan mid sii jiraysa maahan sharciga article 370 markii aad fiirisid si walba oo caddeyn loo aruuriyo meel kastoo laga fiiriyo ulajeedadooda ugu weyn waxay tahay dadkaas wax xabsiya inaysan gelin si mar walba ayaga qarashaadkooda kaliya oo ugu socdo shacabka agtoodana waxay ka yihiin dad mar walba maxbuus ah wiil aan isku fasal ahaan jirnay oo magaciisa la dhihi jiray Fashi Kumar ilaa ay hadeerta meel uu ku sugan yahay cid og ma lahan habakatar meesha la dhahaa ayuu waardiye ka yahay sidoo kale article 370 ayaa u diidaysa dawladda inuu u shaqeeyo mar walba gabar reer Kashmiir ah nina reer Kashmiir ahaan haddii guursato hantidooda dhan waa lala wareegayaa xuquuqda hinduuda ay leeyihiin haba laga soo tago sababta ciyaalka xornimo doonka dhagax loogu dhiibayo maxay tahay dadka tuugada ah ilmahooda sababta iskoolaadka qaaliga loo geynayo maxay tahay waliba iskuulada ugu waaweyn dalka dibadiisana ay wax ugu baranayaan maxay tahay marwa iga raali noqo dadka musuqmaasuqa way ku dhaxdhasheen mana laga yaabo musuqmaasuqaas inay ka dhaxbaxaan si walba aan sameeyno tilaabo walbaan qaadno wax walba ay sameynayaan anaga kama celin karno mideeda kale wax walba aan sameeyno article 370 inaan wax ka bedelno cidna ogolaanaysa ma lahan marwa kashmiir kiiskeeda mid luma waa iska daa waa inaan iskiilowna anaga ninka warbixinta ku soo gudbinaaye magaciisa waa Jibriil waan aqaanaa Zoni hadalkayga si fiican u maqal aniga Cabdalla oo kaliya ayaan u baahanahay haddaba ninkaas waa inaad isaga fogaataa haddii aan ku dhaha ka waran muddada la soo dhaafo dhan ISA ayuu ka shaqaynayay macnaha ninkaas la wajiilo ma ka dhigi rabtaa hadda dabcan wuu yahay midaasna adiga ku mahadsan hadda ka hor waad ogtahay ninkii sirdoonka ahaa ninkii Kashmiir laga raadinayo ayuu fikiray hadda ka hor aqli darada sameeyay ilaa haddaan ku jirnaa intaasoo sano ayaa daba socotay dadka mar walba fariinta ku soo gudbinayo laakiin xiriirkaas maxad ka faa'iideeyay sheeg 1996 ciidamada Kashmiir doorashada 9 sano ayadoo aysan ka dhamaan ciidamo kale ay keensadeen ciidamo ISI ay soo kireysteen ilaa ay haddana warbaahinta waxaas ay wadodaan sababtoo ah wax khaldana loo sheegay wixiyaan ilaa ay had mas'uuliyadeeda anaga korka naga saarayaan kuwa hay'adahana wax way ka qaban laayeen arintaas hay'adihii sirdoonkana ciidamadaas way soo qaban waayeen marka anaga maxaan sameynaa markaas aniga go'aan ku gaaray Cabdalahan sirdoonka ayaga inaan ku dhex daro si aan ayaga ugu qanciyo qorshahooda inay wax ka bedelaan dadkaas aniga fursadaha sababtan ugu xeeray ma taqaana sababta waxay tahay dawladda fursadahaas markay ka soo xirmaan teeda ay isticmaalaan midaas moogtaadii mudane ii sheeg dadka sideed ku qancisay lacag ma siisay wax ma u ballan qaaday midaas qancin lagu ma tilmaami karo xadgudub sharciga aad u geysatay waaye Cabdalla sirdoonkaas aniga ku dhex darsaday waliba muddo 13 sano aniga ayuu ii adeegay wax walbaan dhahana sidee tahay uu sameeyay ilaa haddana ku dhex jira 13 sano ka hor ninkaas shaqadaada ka qaadin waxay u egtahay abaalkaaga mar hore inuu ku guday adigana waa adeegay ee asaga kuma adeegin ogow xafiiska iga bax dhaqso Cabdalla waa inaad igu soo wareejisaa aygu kalifin dalhi inaan la hadlo